beelaha hawiye oo si gaar ah ula hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey kaalintooda ku aadan xalinta khilaafaadka ka dhex aloosan madaxda ugu sarreysa ee maamulka galmudug xilli ay taagan tahay muran iyo isqabqabsi u dhaxeeya madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen ee maamulkaas galmudug. kaalinta dowladda dhexe ayuu sheegay in arrintan ay tahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya baaqiisii hore inay qaataan madaxda maamulka galmudug oo iyaga hore ugu biyadiiday. mar wax laga weydiiyey waxa ay kala socdaan khilaafka ayuu sheegay afayeenku in mas'uuliyad darrada ka dhalata khilaafkaas ay dusha saaran doonaan hoggaanka galmudug. annagu haddaan odayaasha Soomaaliyeed in wada hadal wax walba lagu dhameeyo ayaan soo jeedinaynaa. haddii khilaafku uu sii socdo wax aan raalli ku noqon karna maahan, wax aan dadkii aan mas'uuliyadda u idmanay oo mas'uulka maamulka galmudug mas'uulka u ahaana wax maaragtay aan ka aqbalayna maahan. wixii ka dambeeyey shirkii golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ee Kismaayo lagu soo gabagabeeyey islamarkaana goluhu ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda dhexe ayaa muushinno kala duwan oo xilka loogu tuuray waa afarta mas'uul ee ugu sarreysa maamulka galmudug, waana markii labaad ee uu khilaafka galmudug uu sababo muushin iyo xilka qaadis xilka looga qaaday hoggaanka galmudug.